xigankeni iyo qawlihii guud weydiyo guryantii waa horseedaheeni dalka horumarkiisiyo hindisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheeni jaangoynta himilada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدي أسأل كسر دوادا برنامج هولها جود يهرمرين تمجالوينك برنامج هولها جود يهرمرين تمجالوينكو وبرنامج تضبع الله وإسكا كاشدين سوسارستي سوسارد هولها جود يريو هرجيسا barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka ee toddobaadkan waxaynu dhageystayaal ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah gobollada laga hirgeliyey magaalooyinkiisa ugu waaweyn qorshadaha nashqadaynta magaalooyinka. tan iyo intii wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeyntu ay bilowday barnaamijka nashqadaynta magaalooyinka waxa uu ka hirgalay oo qorshahaasi nashqadaynta magaalooyinka laga hirgeliyey magaalooyinka Cerigabo, Gabiley, Boorama iyo Laascaanood. haddaba gobolka Gabiley waa gobolka ugu badan ee magaalooyinkiisa laga sameeyey nashqadaynta magaalooyinka waxaana la nashqadeeyey ilaa hadda 3 magaalo oo kala ah Wajaale, Gabiley iyo degmada Agabar. isuduwaha gobolka Gabiley ee wasaaradda hawlaha guud Cabdi Cali Cilmi waxa uu barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka uga warbixiyey sida uu gobolka Gabiley gaar ahaan magaalooyinkii laga hirgeliyey qorshaha nashqadaynta magaalooyinku uga hirgalay. runtii wasaaradda aniga waxa la magacaabay xilkayga sanadkii 2018 ayaa la magacaabay waqtigaas oo town balankii magaalada Wajaale la fulinayay. alxamdulillah rabbil caalamiin. waxyaabaha wasaaradda hawlaha guud lagu xasuusto waxa kamid ah oo adimka sawirka halka ku yaalo kala ku arki karto waxa weeyaan wasaaradda magaalada Wajaale aad bay dhibaato ugu qabeen dadku inay wadooyinka helaan. maalintii aanu town balanka fulinay ay wasaaradda hawlaha guud hawsha qabatay xataa waxa isbedelay qiimihii dhulka isbedelay ganacsigii baa isbedelay koray oo waxa weeyaan dhul fara badan oo marka hore aan guryo dhagax laga dhisi jirin oo aan dadku kalsooni fara badan ku qabin ayaa laga sameeyay. waxa weeyaan maanta dhulka ganacsiga magaalada gudaheega 90% waa guryo dhagaxa. sababtaana waxa marka taala laga yimaado waxa suuro galiyay wasaaradda hawlaha guud dadka markay town balankii oo qof walba wadadii dhanka ka marayso arkay wuxuu ku dhiiriday inuu guryo dhagax ka dhisto ilaa fooqiyo in laga dhiso ayaa lagu dhiiriday. alxamdulillah rabbil caalamiin. taas wata 2019 diiwaangelinta danta guud qarankan sameynay oo wasaaraddu ay dalka oo dhan ka sameysay ka hirgelisay. Gabiley waa waxa meelaha ugu faraha badan leh ee dhulka danta guud laga soo diiwaangeliyay ahayd. taana runtii qorshe fiican oo ay wasaaraddu ku tallaabsatay ka gobol ahaanna aanu ku helnay dhul fara badan khaasatan dhulka iskuulada oo kale ayaanu aad iyo aad uga faa'iiday. 2019 dabayaaqadiisii ilaa 20 waxaanu fulinay town balankii magaalada Gabiley oo ah runtii mashruuc ku kacay gudaha iyo dibadda marka loo kala qaado lacag ilaa $200,000 oo ku kacay oo ay runtii lacagta badankeyga ay dawladda hoose aan ku fulinay bixisay. wasaaraduna ay ku kabtay magaalada gudaheega oo aad maanta Gabiley hadaad aragto wadada weyn ee number 1ka ee afartahaada waan ku haynaa iyadoo markii aan fulinay runtii dadku wax far badan bay isweydiin jireen wadadaas inta ma noqon kartaa iyo ma noqon kartee dad bacaynkaas laakiin maanta markii uu qorshahaas dhamaaday quruxdii magaaladuna soo baxday dhul far badan oo la qorsheeyay magaaladuna way fiday. alxamdulillah runtii meelaha aanu aad uga howlgalnay. isuduwe Cabdi Cali Cilmi waxa tahay isuduwaha wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Gabiley waxaad sheegtay inaad gobolka Gabiley magaalada Gabiley caasimadiisa iyo Wajaale laga fuliyay qorshaha danta guud ee wasaaradda hawlaha guud ee waday. sidee ayaa isuduwahan
waxaad noogu rantaa bal siduu uga dhaqan galay qorshaha nashqadaynta magaalooyinka Gabiley iyo Wajaale. inta badan qorshaha nashqadaynta magaalooyinku waxa uu ka yimaadaa hindisihiisu maamulka heer degmo iyo heer gobol. haddaba sidee ay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley wasaaradda hawlaha guud ugala shaqeeyeen qorshaha nashqadaynta magaalooyinka maadaama gobolka Gabiley yahay gobolka kaliya ee 3 magaalo oo kamid laga hirgeliyay qorshaha nashqadaynta magaalooyinka. awalan horta si fiican buu uga hirgalay sababta koowaadna waxa weeyaan wada shaqayn wasaaradda hawlaha guud iyo maamulada ama heer gobolaha ama heer degmada wada shaqayn fiican oo ka dhaxaysa awoodeed ayuu ku hirgalay taasina oo alxamdulillah rabbil caalamiin oo waxa weeyaan kow inuu qorshaha ama Wajaale ama Gabiley ay hirgalo waxa kow ka maamulka heer gobol iyo heer degmo oo si niyad sami oo daacadnimo oo kalsooni ku jirto noogala shaqeeya hadday noqoto wadooyinkoona ilaalino iyo hadday noqoto dinta guudba waxa kow ka wada shaqaynta wanaagsan ee naga dhaxaysa maamulka gobolka iyo ka degmooyinka iyo runtii ciidanka amniga ee booliska oo aan si gaar ah ugu mahadcelinayo oo markasta heegan u ah ilaalinta dinta guud. tan iyo intii Soomaaliland madax banaanideeda kala soo noqotay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya maamulka dhulka danta guud waxa saameyn ku lahaa dhinacyo kala duwan oo ku tagrifalay dhulka danta guud. haddaba maamulka wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Gabiley sideeha ayay u meeroyeen arrimahaasi intii gobolka laga fuliyay qorshaha nashqadaynta magaalooyinka. horta walaal saan wada shaqeynaa waa qorshe cad oo waxa weeyaan heer number 17 ku waxba noo kala cadeynaya waxaan iyagana si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii wasiirkeedu Maxamed Kaayin Axmed oo si cad oo kaleera u sheegay oo qoraal ugu sameeyay in dhulka magaalada khaasatan Wajaale oo kale in town plan-ka la sameeyay waxaan waafaqsanayn oo ka hor imanaya aan haba yaraatay dawladda hoose degmada Wajaale ku kicin runtii nimanka dhalinyarta imika iyo maamulkii horeba si fiican baan arrintaa ay wasaaradda arrimaha guduhu amarka ay soo saartay ay noogula shaqeeyaan waxaan uga mahadcelinaynaa inaan haba yaraatay muddada aan wada shaqeynay wax khilaaf oo dhula oo cid la siiyay oo wasaaradda iyo degmooyinka ka dhaxdhacay aan jirin oo inta aan anu isleeyahay degmooyinka kale ama gobolada kale aad iyo aad baan uga nasiib badanahay xagga khilaafka dhulka in degmooyinkaas ka maamul ahaanna aanay jirin waxa go'o ka yimaada xageegana qorshe cad oo aan marka hore waan ku wada shaqeynay jiraan. geesta kale wasaaradda hawlaha guud iyo maamulka wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Gabiley sidee ayay u maamuleen dhulkii danta guud ee ka soo baxay qorshaha nashqadaynta 3 magaalo ee gobolka Gabiley kamid ah maxayse mashaariic ka fuliyeen. oo si fiican haddaan laba kugu kala qaado imka Gabiley oo kale waxaan wadnaa beeraha ku wareegsan 4 tijaabayna ku wareegsan hadda waxaan soo diiwaan gelinay 116 beerood oo in dantii guudna laga gooyo oo uu qaranku intifaaco aanu ugu talagalnay. Wajaale oo kale waxaanu qorsheynay oo magaalada ku hareersan oo aanu qorshooga fulinay 15 beerood 6 beerood oo kamid ah waanu kala wareegnay dantii guud waxaanu u isticmaalay in laga dhiso waxyaabaha qaranka oo wasaaradda dawladda oo kale waxaan ku sheegi karaa imika dawladda cusub dawladda hoose degmada Wajaale dhulka ay ka dhisan tahay ee imika laga hirgeliyay kambuulkayga haddii aad aragto waxa weeyaan dhulkii aan danta guud beerayaan ka qaadnay waxa kale oo jira iyadana xarunta dendamiska ee magaalada Wajaale waxa kale oo jira dhul aanu siinay maxkamadda waxa kale oo jira dhul aanu siinay xeerlaalinta waxa jira sirdoonka oo kale dhul baanu siinay iskuul aanu galbeedka magaalada ugu talagalnay dhul 100 aanu haynaa oo haddii alla yiraahdo aan ku wasaaradda ku wareejin doono wasaaradda waxbarashada waxa kale oo aanu ballaarin ku sameeynaa gurigii martida ee magaalada Wajaale oo aanu dendamiskii markaan dhulka siinay iyo maxkamadiiba aanu u rari doono kale oo aanu aad iyo aadiyadana aanu ugu niyeysanahay haynaa oo aanu ku wareejinay culimada tabliiqinta leeyahay markas weyn oo Wajaale laga sameynayo inaanu dhul cabirkiisu dhan yahay 120 aanu ku wareejinay alxamdulillah rabbil caalamiin waayo ummadda in dhan walba laga dhisaa khaasatan waxyaabaha danta guud ee loo ilaalinaya waxa kamid ah inaynu helno goobo faalalo oo aynu ku cibaadeysan sidoo kale masaajidka weyn ee magaalada xagga dambe ka xiga oo imika 3 dabaq laga dhisay oo ay ganacsatada magaalada Wajaale dhiseen dhulkaasi wuxuu ahaa dhulkii ay hore u lahayd u qaranku u lahaa
oo madaxweynuhu uu ku wareejiyey alxamdulilah dhulkaana masaajid iminka 3 dabaqa laga dhisay haddaba maxay tahay faa'iidada ugu weyn ee qorshaha nashqadaynta magaalooyinku uu u leeyahay magaalooyinkaasi laga hirgeliyey qorshaha nashqadaynta magaalooyinka ee gobolka Gabiley haddii aan ku horeeyo magaalada Wajaale oo magaalo ganacsiyeed magaalada Wajaale markii hore waxay u cududumneed ama ay gacmaha ugu xidhnay wada la'aan oo waxa weeye magaaladu waxay u fidi lahayd qorshe la'aan talabaad ee jirtayna waxay ahayd in magaaladu aanu qofku maadaama ay magaalo ganacsiyeed tahay aanu qofkii mar haddii aan tan balayn aan lahayn aanu ku dhiiran karin inuu dhismo permanent ka dhisto dhammaan dhismayaasha ka dhisnaa waxay ahaayeen temporary bah oo qofku sandaqad buu dhisay sandaqada marka uu dhiso wad garan kartaa ninka guri sandaqada ku jira ee lacag ilaa $1 milyan ay dhex taalo kalsoonidiisa iyo sida ay aaminaadiisu ay tahay wad garan kartaa laakiin markii aanu tan balayn ka fulinay qorshaha markii la sameeyay magaaladu waxay isku bedeshay magaalo permanent waana fiday at least dhan walba 1 kilomitir oo dhaqaaq afarta jiho dhan walba 1 kilomitir oo dhaqaaqday maanta magaalada Wajaale waxa ka dhisan ugu yaraan dhowr iyo 20 dabaq baa ka dhisan dhammaan hantida inta leegna waxa la geliyay waqtigii ay wasaaradda hawlaha guud ay town plan-ka u sameysay ka bacdi oo qofkii uu kalsooni qaatay inuu hanti inta leeg ku aamini karo waayo marka hore qofku ma way jirin ba wadooyinna ma jirin waxa cad oo uu qofku yiraahdo halka guriga noocaas dad ka dhisato hadhow toole ma wadu noqon doonaa macaynka runtii markaan magaalada town plan-ka loo sameeyay waxa baaba'ay dhul fara badan oo xataa dad ay iibsadeen oo dhowr iyo $30,000 laga siiyay ayaa wadooyin ku dhaceen marka alxamdulillah qorshaha magaalada waxaad ka dareemi kartaa waxaan jeclaan lahaa in mar aad Wajaale tagto magaalo dhan oo waxa jirta iminka intii wasaaradda hawlaha guud ay sameysay qorshaha galbeedka magaaladaas oo gebigeeguba hirgashay waqtigii town plan-ka dambeeyay oo ugu yaraan 1 kilomitir u dhowdhow marka Wajaale waa sida Gabiley oo kale waxaad arki kartaa iyadana magaalada wadada weyn ee number 1 ka waa Firhaad marka horena waxyaabo badan baa ku soo urursanaa magaalada gudaheega marka runtii maamul ahaan maamulada degmooyinka oo kale iyo wasaarad ahaanba waxaanu aaminsanahay in labada magaalaba qorshihii magaalada ee loo sameeyay ay ka faa'iideen waxa kale oo dhawaan iyadana aanu qorshe u sameynay town plan-ka degmada Agabar oo runtii garanwaa fara badan oo xidhna wadooyin aan lahayn waxaanu soo sameynay 1 kilomitir oo dhan walba isku wareega oo iyagana wax badan ku soo duminay maanta magaalada Agabar haddii aad tagto degmada Agabar haddii aad tagto waa degmada ugu waqooyiga u xigta gobolka Gabiley waxaad dareemi kartaa wadooyinka aan ka saarnay iyo qorshaheegu siduu yahay oo aad maanta marka dhex joogto in magaaladaasi magaalo fidaysa oo dhismaysa tahay waxaan u qorshaysan kulleeyka gobol ahaan inaanu muddada sanadkan gudihiisa inaanu degmooyinka alle baday oo kala aanu diyaaradaanu wadooyin fara badan u sameeyno oo aanu ka saarno annagoo ka gobol ahaan isku tashanayna inaasan ku soo koobayaa kaasi dhegeystayaal waxa uu siduwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeenta ee gobolka Gabiley Cabdi Cali Cilmi oo barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka toddobaadkan uga xog waramayay bal sida uu gobolka Gabiley iyo degmooyinkiisa uga hirgalay qorshaha nashqadaynta magaalooyinka ee wasaaradda hawlaha guud ka fulisay barnaamijkii hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka ee toddobaadkan intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaa anigoo Cabdiqaadir Xuseen Urdaara ee barnaamijka idin la socodsiinay barnaamijkan mid lamada intaan isugu iman doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo adiguna bulshooy hooy aanedankaago marka ay halgamayaan adiguna hangoolkiyo yaa ogow hiraalko kartidaadu yay hadhin waa higankeeni iyo hawlihii guud iyo guryeyntii waa horseedaheeni waa horseedaheeni dalka horumarkiisiyo hindisaha dhismaha qaran wargeliyaheeni jangoynta himilada